السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيارتكو حيران channelkan أحمد داruqni kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta waxaynu ku hadli doonaa qaybtii labaad ee maxaad ka taqaanaa dhulka. Dhulka waxaa ku hareeraysan biyo kuwaas oo qoriya 71% dhulka oo dhan, waxayna ku fadhiyaan bad gaaraya 510 milyan oo square kilometer. biyahaas ayaa u qaybsama qaybo badan, waxaana ugu weyn bad iyo badweyn. dhulka waxaa ku hareeraysan 5 badweyn oo lagu kala magacaabo badweynta Hindiya, badweynta Atlantic, badweynta Koonfureed, badweynta Waqooyi iyo badweynta Pacific. badweynta Pacific waa badda ugu weyn adduunka, waxayna ku fadhidaa bad gaaraya 155 milyan 557 kun oo square kilometer. waxayna u kala dhaxaysaa qaaradaha Asia, Waqooyiga Amerika, Australia iyo Koonfurta Amerika. badweynta Atlantic waa badda labaad ee ugu weyn adduunka, waxayna ku fadhidaa bad gaaraya 76 milyan 762 kun oo kilometer square. baddan ayaa u dhaxaysa qaaradaha Yurub, Afrika, Waqooyiga Amerika iyo Koonfurta Amerika. badweynta India ayaa ku jirta kaalinta saddexaad, waxayna ku fadhidaa bad gaaraya 68 milyan 556 kun oo square kilometer. waxayna u dhaxaysaa saddex qaaradood oo lagu kala magacaabo Asia, Afrika iyo Australia. badweynta Koonfureed ayaa ku jirta nambarka afaraad, waxayna ku fadhidaa bad gaaraya 20 milyan 327 kun oo square kilometer. baddan ayaa badda ku hareeraysan qaaradda Antarctica, qaaraddaas oo wada qariyay baraf. sidaas darteed badweyntan waa bad ay baraf wada qarisay, kumana suurtagelayso inaad ku dabaalato ama aad ku safarto. badweynta Waqooyi ee loogu yeero Arctic ayaa ku jirta kaalinta shanaad, waxayna ku fadhidaa bad gaaraya 14 milyan 56 kun oo square kilometer. baddan ayaa ku taalla cirifka Waqooyi, waxayna u dhaxaysaa Yurub, Asia iyo Waqooyiga Amerika. sidoo kale waxaa jira badooyin yaryar oo badkoodu uusan gaarin badweynta, waxaana ugu caansan badda Cas, badda Caspianka, badda Madow, badda Mediterraneanka, badda Carabta, badda Caribbeanka, badda Koonfurta China iyo badda Dhimantay. haddaynu intaa uga tagno badooyinka, dhulka biyaha fadhiya intaas kuma eg. sidoo kale waxaa jira webiyo oo ay biyahoodu aad macaan yihiin. haddaynu ka soo qaadano saddexda ugu caansan, waxaa kaalinta koowaad ku jira webiga Amazon ee ku yaalla qaaradda Koonfur Amerika. waxa uuna ku fadhiyaa dhul gaaraya 7 milyan 50 kun oo kilometer square, wuxuuna dhex maraa wadamada Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela iyo Guyana. biyihiisuna waxay ku darsamaan badda Atlantic. webiga Nile ee ku yaalla qaaradda Afrika ayaa ah midka labaad, wuxuuna ku fadhiyaa 3 milyan 254 kun 555 square kilometer. wuxuuna dhex maraa wadamada Ethiopia, Eritrea, Sudan, Uganda, Kenya, Koonfurta Sudan, Rwanda, Tanzania, Burundi, Masar iyo Democratic Republic of Congo. biyihiisana waxay ku darsamaan badda Mediterraneanka. webiga Yangtze ee ku yaalla qaaradda Aasiya, gaar ahaan waddanka China, ayaa ku jira kaalinta saddexaad, wuxuuna ku fadhiyaa bad dhan 1 milyan 800 kun oo kilometer square, waxayna biyihiisa ku darsamaan badda bariga China. intaasi kuma koobna biyaha dhulka yaalla, balse waa intii ugu muhiimsanayd. intaas ayay noogu egtahay qaybtii labaad ee maxaad ka taqaanaa dhulka. intaan ku kulmi doono muuqaalkan lamida, waxaa idinkaga tegay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.